sheekh adiga oo weysada wada haddii ay neef kaa timaado weysadii ma soo bilaabaysaa? alxamdulilah haawad soo bilaabi. weysadu niyay u wada baahan tahay. niyadii hore markaad niyootay eed qayb maraysana weysadii haddii wax jabiya uu yimid niyadii waa jabtay. saa darteed neefta iyo kaadida iyo saxarada iyo waxyaa hurdada iyo hal weyse maahane wixii kaloo weyse oo dhan way jabiyaan. hal weyse oo waxaa jirta aan neefina jabin, musqul iyo saxar iyo kaadina aan ku jabin, haddaad seexatana aan jabin. oo waxaa la yidhaha wuduu'uljunub. qofka janaabada qaba weysada uu weysaystaay ee tii qabayska ka horraysay ahayd kuma tukan kara dabcan, laakiin hadday waxyaabahan kaadiga jabiye yimaadaan qabayska isweysadii ka horraysay ee sunnada ahayd soo celi la odhan maayo. oo iyadu keliya xiriir gogoleedoo kale unbaa jabiya, wax kaloo jabiya lama arko. wixii qabayska waajibinaya unbaa jabiya, waxa kaloo dhan ma jabiyaan. amaa weysada inta kale oo dhan adigoo luqun kuu laaban tahay haddii ay weysadii wax jabiya kaa yimaado weysadaadoo dhan waa jabaysaa. haddaad weji keliya martayna dib baad ka soo bilaabi. salaaduna waa la mid. salaadda atixiyaad ku dambeeya adoo fadhiya hadday weysadu kaa jabto dee salaadu ma kala hadhi kartee waad soo bilaabi. soonkii baa la mid ah. iyadoo casarkii afurkii wax yar ka dhiman yahay gabadhu hadday caadadii ku dhacdo maalintaa soonkeeda qado weeye. marka cibaadaadka halka niyo u baahan, niyadaasi wixii jabinaya hadduu yimaado oo ay jabto bilowga soo bilaabatay iyadaa dhan way wada jabaysaa. wabilaahi towfiiq. jazaaka allahu khayran sheekh.